بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما. صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa dhammaan shacbiga Soomaaliyeed, waxaan salaamayaa dhammaan xildhibaanada golaha shacabka iyo aqalka sare, waxaan salaamayaa dhammaan culamaa diinka, dhammaan ururada bulshada qaybahooda kala duwan. waa salaaman tihiin. waxaan rabaa hor iyo horaan inaan shacbiga Soomaaliyeed u mahadceliyo sida oo ay u dhabar adeegeen, ay noogu sabreen inta arrimahan aan ka kala saarayno, ay noo soo dhabar adeegeen, iyo muujinta taageerada ay muujiyeen in ay diyaar u yihiin inay taageeraan ku dhaqanka dastuurka, ku dhaqanka sharciga, ku dhaqanka iyo ilaalinta nidaamka dimuqraadiga ah ay taageersanaayeen. sida inoo muujiyeen mahad gaar ay iga mudan yihiin. dhammaan annagoo dhan xildhibaan ahaan mahad ay naga mudan yihiin. ilaahay jasadiina ha gudo. waxaan si gaar ah weliba ugu mahad celinayaa culamaa udiinka oo intaa masaajidada qur-aanka akrinaysay in dalkan ilaahay sida roon oo rabbi raalli uu ka yahay u baryaay inuuna waafajiyo. annagoo dhan dalkeena dhibaatada ku jirta ka baxda u duceynaya ayaamahan oo dhan. aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa. waxaana jasadiina allah ha gudo. jasaakum allah khayr. laakiin yaan la joojinin ducada, sujuudda ha lagu duceeyo. dalkan dhibaatada ilaahay ka saaro. muddo badan ay soo dhibtoodeen ummadan addoommada ilaahay ah, in ilaahay tawfiiq iyo barwaaqo iyo nabad iyo amni in ilaahay u keeno. taa waa ku mahadsanta. ayaan idinku baraarujinayaa. jasadiisna allah idin sii gudaya insha allah. si kale waxaan kaloo gaar ahaan u mahad celinayaa guddigii oo aqalka sare oo guud ahaan iyo guddoomiyaha aqalka sareba inay noo soo magacaabeen guddi oo loo soo xilqaamay in ay in ay xal u raadiyaan khilaafaadkan soo yaro dhexgalay, oo ay dadaal badan ay muujiyeen. waxa aan iyagana way ku ammaanan yihiin adkeysiga ay u adkeysteen iyo kadeedka la saaray iyo wax walba inay u adkeysteen, iyagoo ku dadaalayay in marxaladan lagu jiro si nabad ah lagu soo afjaro. ay ku dadaaleen. waa ku mahadsan yihiin. aada iyo aad baan iyagana rabbi ugu tuugeynaya in jasadooda alla u gudo. aqalka sarena ammaan gaar ah ayaan ugu yeerinaya in tallaabadaasi iskooda isu soo xilqaameen. annagana aada aan usoo dhaweynay. mudanayaal, saad ka warqabtaanba ayaamahan waxaan la xadbinaynay in khilaafaad yaryar dhacay inaan dejino oo wixii sharciga waafaqsan iyo dastuurka oo oranaya in la mariyo. annaga waxaan mar walba usoo taaganahay, aan ogolnahay in lagu dhaqmo dhaqanka oo noo yaalo, shuruucda noo degsan, shareecad ha noqoto, dastuurka ha noqdo, dhaqan soomaaliyeedka ha noqdo, odaytanimo ha noqoto, dhammaanba wixii oo dalkan khilaaf ka fogeynayo iyo qalalaaso ka fogeynayaba in ay albaabkeeda la xiro ayaan ka shaqeynayna. alxamdulilah, ilaa hadda waa fiicannahay. mahadaas ka bacdi waxaan jeclahay baarlamaanka federaalka labadiisa aqal waxaa weeyaan keedhayaha gobonnimada Soomaaliyeed, ilaaliyaha sareynta sharciga iyo amniga iyo hantida dowladda markaan leeyahay waa hantida shacbiga. annaga waxaan nahay qowsaaro, sida inka geel jira iyo loo jira iyo ari jira u dhahdaa. annagana waxaan jirnaa qaran jiraan nahay. qarankaasi dadkaasi dantiisa ayaan ilaalinaa. marka adimana waxaa noo ah xukuumad baan dhisnaa oo aan barnaamijkeeda ansixinaa, oo xoolaha shacbiga khasnada guud ku jira ayaan miisaaneed uga ansixinaa si barnaamijka aan ansixina ay u fuliyaan. waa adimaheena, adimaha baarlamaanka oo arrimaha lagu fuliyo waa baarlamaanka. 3 hay-adood weeyaan. waa hay-adan oo sharci dejinta ama xeer dejinta la yihahdo oo baarlamaanka labadiisa aqal ah. waa laanta fulinta oo xukuumadda ka kooban, madaxweyne ilaa magaciisa ilaa xukuumadda ah haddii alla ku roon yahay, iyo laanta sharci dejinta. madaxweynahana waa udub dhexaadka u dhexeeya 3